caawa habeen doorasho xasaasiya oo xamaasadeeda wadata oo aad u muhiima oo run ahaantii ay miiska saaran yihiin qodobo fara badan oo dadweynaha kala duwan haddii aan ku horeyno doorashadu waxay ka dhacaysaa guud ahaan dalka Mareykanka waxa loo tartamayaa muxuu ahaa gudoomiyaasha gobolada waxa loo tartamayaa golayaasha baarlamaanka wakiilada iyo aqalka sanadka ee guurtida haddii aynu ku bilowno gobolkan Minnesota oo ah isagu gobol dimuqraadiya oo dimuqraadiga taageeradiisu ay rigli tahay haddana maalmaha waxay soo tareeyay in uu soo xoogaysanayay dadka u janjeera dhinaca Republicanka waxa uu tartan adag ka jira kuraasida qaarkood sida kursiga gudoomiyaha laftigiisa gudoomiyaha waa nin dimuqraadi ah waxa la yiraahdaa Tim Walz waxana la tartamaya nin kale oo Republican oo uu taageeray Donald Trump oo la yiraahdo muxuu ahaa Scott Jensen laakiin waxa aad loo saadaalinaya in gudoomiyaha gobolka ku soo baxo tartanka kale aad loo hadal hayo isaguna waxa weeye tartanka xeer ilaaliyaha guud oo uu kursigaasi ku fadhiyo nin dimuqraadi oo muslim oo la yiraahdo Keith Ellison waxana la tartamaya nin la yiraahdo Jim Charles oo isagu ka socda xisbiga jamhuuriga dimuqraadi Republicanka marka waxaan ku suganahay sida horeyba u sheegay xaafada Cedar waxa xaafada ay aad ugu xoogay yihiin dimuqraadiga iyo bulshada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa ama aad loo saadaalinaya in ay Ilhaan Cumar kursiga degmada shanaad oo xaafadani ay ka tirsan tahay ay iyadu u sharaxan tahay waxana la tartamaysa gabadh madow ah iyadu u dhalatay magaalada Minneapolis oo la yiraahdo Cicely Davis laakiin waxa laga yaabaa Ilhaan ama sida loo saadaalinaya in Ilhaan Cumar ay ay aqlabiyad buuxda ay kursigani ay ku hesho markaas waxaan jecelnahay in dadweynihii halkan ku codeynayay qaarkood ayaan mikrafoon kala dhex marnay inaan waraysigeedii idin soo deyno waxa kale oo aan warbixin idiga siin doonaa tartamada kale ee gobolada kale kuwooga xamaasada ee madaxa la isku jiro sida gobolka aynu daliska nahay ee Wisconsin oo kursiga sanadka aad loogu tartamayo kursi aan la saadaalin karin inuu yahay kaasi oo laga yaabo in uu wax ka bedelo miisaanka cida hogaamin doonta aqalka sanadka ama guurtida wakiilada dhowr kursi ayaa madaxa la isku jira Pennsylvania kamida oo toddobaadkii ugu dambeeyay ay aad uga ololeynayeen madaxweynaha hadda Joe Biden madaxweynihii hore Trump madaxweynihii hore Obama madaxweynihii hore Bill Clinton kursigaasi aad buu muhiim u yahay waxa ku tartamaya nin dimuqraadigu ay aad u taageerayaan gobolkaasi Pennsylvania waa aad muhiim u yahay Jim Fetterman baa la yiraahdaa waxa kale oo kursigaasi kula tartamaya oo wali ay sida ay saadaashu sheegayso madaxa la isku jiro oo boqolkiiba 50 ay kala saadaashu ay wali la kala haystaa nin la yiraahdo Mehmet Oz oo isagu nin doctora oo run ahaantii TV-ga barnaamijyo caafimaad ka soo gudbin jiray waxa uu haystaa taageerayaasha dadka xaq jirka ah ee ugu horeeyo madaxweyne Donald Trump marka waan idin soo gudbin doonaa hadda sida uu yahay sanadku waxba la isma dheera ama oo waa 50 iyo 50 laakiin waxa hal dheerisa madaxweyne ku xigeenka gabadha la yiraahdo Kamala Harris waa habeen caawa habeen roobdaayo aad buu qabow yahay doorashadani waxay aad u muhiimadeeda aad loo cadeeyay waxa dad badan baa hore sii codeeyay guud ahaan wadanka 50 milyan oo qof baa codkooda hore u sii dhiibtay maanta ka hor gobolkani Minnesota 600 oo kun oo qof oo aan xitaa anigu ku jiro ayaa hore u sii dhiibtay toddobaadkii hore waxa kale oo laga yaabaa in natiijada caawa aan la sheegi karin qaarkood meelaha qaarkood oo muxuu ahaa meelaha kuraasida ama la isku dhow yahay waayo dad badan baa iyagu codkooda ku soo dhiibtay muxuu ahaa boostada marka gobolada qaarkood xeerarkoodu way kala duwan gobolada qaarkood waxay marka hore tiriyaan muxuu ahaa codadka lagu dhiibtay in boostada kadib codadka sida shakhsi ahaanta loo dhiibtay tiriyaan xagga qaarkood gobolada qaarkoodna ay tiriyaan codadka lagu dhiibtay boostada marka ay dhameeyaan codadka kale ee sida shakhsiga loo dhiibtay goboladaas ayaa laga yaabaa in uu waxoogaa ku dhaco hadda imka natiijada aan helayno
meelo badan oo la filayay kuraasi fara badan oo la filayay inay Republicaanku ay helaan waa heleen gobolka weyn ee Florida waa kamid ah governorka ama gudoomiyaha gobolkaasi Ron DeSantis ayaa imika sidaan wararka ku helayno ee ku guuleystay waxa ninkaas aad loo saadaalinaya in doorashada soo socota madaxtinimada xisbiga jamhuuriga oo madaxweyne Donald Trump uu kula tartami doono Marco Rubio oo isaguna senator Republican oo gobolka Florida waxa imika la sheegay in guuleystay laakiin waxa aad indhaha loogu hayaa gobolka Georgia oo caasimaddiisa magaalada ugu weyn ee Atlanta tahay madaxa la isku jira marka kursigaasi senatka ah oo ay hadda haystaan xisbiga dimuqraadigu waxa looga baahayay inay kursigaasi xajistaan Pennsylvania inay ku guuleystaan Wisconsin inay ku guuleystaan Michigan madaxa ayaa la isku jira haday tahay governorka gudoomiyaha gobolka iyo haday tahay kursiga senatka natiijada waan idin soo gudbin doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan idin soo gudbino dadkii aanu waxoogaanu fikirkooga weydiinay goordhowna waxaanu tagi doonaa maqaaxida la yiraahdo Eastro oo ku taala magaalada Minneapolis oo halkaasi oo guusha Ilhaan Cumar lagu daawan doono oo ay Ilhaan iman doonto la filayo in Ilhaan timaado oo ka qodbadayso hadii ay guuleysato waana loo saadaalinay inay guuleysato halkaasna waa tagi doonaa si toos ah baanan idin ka soo gudbin doonaa